የሆሳና ከተማ ነዋሪዎች ከሁሉ በላይ በጀግንነቱ በሀገር ወዳድነቱ በትጋቱ በአቃፊነቱ የሚታወቀው የሀዲያ ሕዝብ ዛሬ መላ የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦች በማዕከላዊት ኢትዮጵያ መዲና በሆሳና ከተማ ሰብሰብ bulshada deegaanka waa magaalada quruxda badan ee Hosaana ugu horeyn shacab weynaha Hadiya ee lagu yaqaano hawlkarnimada geesinimada iyo midnimada maanta dhammaan shacab weynaha maadaama aad noogu fududeyseen in aanu si wada jira u xusno xuskan qoomiyadaha iyo shucuubta aad ayaan idinkaga mahadcelinayaa Hadiya waa shacab u hubeeyay ciidanka qaranka Cornel Bazabe qorshaha u dejiyay waxa hirgelin doona oo sii wadi doona dhalinyarada sida aan idinka rajeynayo in idinkula dardaarmayo shacabka sharafta leh ee bartamaha Itoobiya gaar ahaan bulshada deegaanka waa Hosaana
ክቡር አገኘሁ ተሻገር የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ፣ ክቡር አቶ ቴዎድሮስ ምህረት የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት፣ ክቡር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ፣ ክቡር አቶ አደን ፋራህ፣ ክቡራን የሁሉም ክልሎች ርዕሳነ መስተዳድሮች፣ የአገር ሽማግሌዎች፣ mudane aganyo tashaagar mudane Tedros Mehret madaxweynaha maxkamadda sare ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane Tamasgan Turune mudane Aadan Faarax madaxweynayaasha dawlad deegaanada odayaal dhaqameedka dalka dhalinyarada bulshada deegaanka waa magaalada quruxda badan ee Hoosana ugu horeyn shacabweynaha hadiya ee lagu yaqaano hawlkarnimada geesinimada iyo midnimada maanta dhammaan shacabweynaha maadaama aad noogu fudaydiseen in aanu si wada jira u xusno xuskan qoomiyadaha iyo shucuubta aad ayaan idinkaga mahadcelinayaa hadiya waa shacab u hubeeyay ciidanka qaranka Cornel Bazabe qorshaha u dejiyay waxaa hirgelin doona oo sii wadi doona dhalinyarada sida aan idinka rajeynayo in idinkula dardaarmayo shacabka sharafta leh ee bartamaha Itoobiya gaar ahaan bulshada deegaanka waa Hoosana ሀዲያ ፋር ዳጉ ለዳውሮ ኩራቱ የሲዳማው ጨምበላላ ለአማራው ሐሴቱ የኦሮሞው ገዳ ለሐረሪ ምቾቱ የአክሱም ሐውልት ለሃዲያው ታሪኩ የጀጎል ግንብ ለቤንሻንጉል ቅርሱ ፋሲል ቤተ መንግሥት ለሃዲያው ሀብቱ የሶማሌው ዳንቶ ለጋሞ ባህሉ የጉራጌ ክትፎ ለያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ጣዕሙ ያንዳችን ለሌላችን ውበት ያንዳችን ለሌላችን ክብር የሆነባትን ሀገር ኢትዮጵያ አንዱ ከፍ ሌላው ዝቅ ብሎ ሳይሆን ሁላችን እኩል daaguga canfarta way ku faanaan dawro cambalaalada sidaama waa farxadda amxaarada gadaaga oromada waa raaxada hareerida taalada aksum waa taariikhda hadiya darbiga jagol waa dhaxalka Benshangul qasriga Faasil waa kaydka hantida hadiya dhaantada Soomaalida waa dhaqanka Gaamo kitfooga uraagada waa dhadhanka qof walba oo Itoobiya oo ku socoto horumar xawaare leh isla markaasina dalka laga hirgeliyay mashaariico badan oo ay ka mid yihiin koridorka magaalooyinka iyo miyiga qaybna ay ka tahay magaalada Hoosana arrimahaas oo isbiirsaday ayaa xoojinaya jiritaankeena Itoobiya iyo barwaaqada qaranka waarta waxa loo baahan yahay oo idinkula dardaarmaya in aad jiilka dhaxal siisaan midnimada ay nooga tageen aabayaasheen maanta dalka waxa ka socda horumar baaxad leh iyadoo lagu dadaalayo horumarinta dalxiiska tiknoolajiyada iyo ganacsiga taas ayaana u horseedaysa Itoobiya in ay mugdiga uga baxdo oo ay hesho ilays horumarineed markaan mid nahay oo aanu ka hortagno cadawgeena doonaya inuu na kala qaybiyo isla markaasina taariikh dhaxalgal ah dalka uga tagno waa in aanu ogaanaa xeelada cadawgeena markastana ilaashano nabadeena wixii jirana wada hadal ku xalino si hufano daacadana aan u fushano hawlaheena markaan u midoono oo aanu fahano xeelada cadawga kala jabinaya shacabka way sahlanaanaysaa inaanu ka hortagno oo xoojino nabadgelyada waarta inagoo adeegsanayna wada tashi iyo is-afgarad isla markaasina si taxadar leh uga shaqeynayna dhammaan xarumaha iyo kaabayaasha horumarineed sidoo kale waa inaynu la dagaalanaa xatooyada oo aanu mudnaanta siinaa danaha dalka iyo waliba sharafta dadkeena horumarinta tiknoolajiyada casriga iyo isbeddelka la bilaabay waa siyaabaha kaliya aynu ku dhammaystiri karno kuna horumarin karno aynu ka gudubno sabooltinimada ku tiirsanaanta cid kale si aanu uga madho dhalino hawlaheena waaweyn ee aanu bilownay waxaan dhammaan shacabka Itoobiya ugu baaqayaa inaanu xoojino nabadgelyada ku xalino khilaafaadkeena wada hadal iyo wada tashi midnimadeena iyo ka shaqeynta danaheena guud
waxaad muujiseen dhextaalnimada iyo muwaadininnimada oo aad ku gudateen waajibaadka idin saarnaa ee ku salaysnaa rabitaankeenna qarannimada wadajirka midabka qowmiyadaha Itoobiya iyo midabka midnimada mid aanu ku xoojinayno oo aanu ku faanayno weeye Itoobiya waa mid sawirkeedu uu yahay midab gooni ah dhaqamo kala duwan kuna hadla afaf kala duwan ku dhisan dhiig mideeya oo ay dadkeedu u shubaan xilliga danaha qaranka lagu soo xadgudbo sarana u qaada iyagoo afkaar kaashanaya maanta mar kale waxaan doonayaa inaanu si sharaf leh ugu cadeeyo shacabka geesiga ah ee hadiya iyo guud ahaan shacabka Itoobiya in Itoobiyaanimadu mid soo jirtay weligeedna jiri doonta oo aan la bedeli karin oo aan la tirtiri karin mid kasta oo naga mid ah waxa uu leeyahay astaamo u gaar ah qurux u gaar ah sharaf u gaar ah asaate Itoobiya waa hal midna midka kale kama sareeyo midna midka kale kama hooseeyo waan simannahay waxaan ku wada nool lahay walaaltinimo iyo isku duubnaan waxaan mar labaad idin dhiibaya amaanada aan rabno inay carruurteenu iyo jiilku u gudbaan taasi oo ah dal la adkeeyay oo qiimihiisu ilaashan yahay sharaftiisuna ay sareyso xorriyadda aanu ku dhaxalnay dhiig ay shubeen awooyaasheen waa waajib in aanu si adag u sii xoojino oo la sugo loona gudbiyo jiilka cusub maanta magaalooyinkeenna heerar cusub ayay gaadheen tuulooyinkeenna iyo degmooyinkeenna ayaa ka soo kabanaya dib u dhacyadii qadiimiga ahaa iyo dhaxalkii taariikhiga ahaa iyagoo la nadiifiyey oo dib loo soo noolaysiiyey waxayna noqdeen astaan sharaf ah oo aan ku koobnayn kaliya Itoobiya balse gaadhay Afrika oo dhan isla markaana ku faanto Afrika xilligan uu ku bilaabmay roobka beeraha dhulkii barwaaqada ahaana dalagyada dib looga soo goosanayo beeraleydu waxa ay ku dadaalayaan sidii loo dabooli lahaa baahida cunnada sidii la isaga kaafin lahaa baahida sidii loo dabooli lahaa baahiyaha shacabka khayraadkeena iyo macdanta ayaa soo ifbaxaya hidaha iyo dalxiiska ayaa sii kobcaya teknolojigu waa u ballaaranaya aqoontuna kor bay u sii socotaa የኢትዮጵያ ብልጽግና የኢትዮጵያ ሙሉነት የሚጓደለው ኢትዮጵያውያን Itoobiya waxa ay ka soo baxaysaa mugdi oo waxay ku socotaa iftiin iyo horumar xilligan taariikhiga ah oo aanu ku midownay magaalada Hosaana waxaan mar kale hor fadhiisanay geesiyaasha iyo shacabka si aanu u xoojino ballanteennii hore inaanu dhammaystirno waxaanu bilownay ee ah horumarinta kaabayaasha kala duwan waxaa mar kale aanu ugu baaqaynaa dhammaan dhalinyarada Itoobiya oo ku wargelinayaa hortiina aynu wada dhisno qarankeena aynu difaacno iskana garab istaagno si midnimo leh dhalinyarta hadiya gaar ahaan haweenka waxaa marag u ah in ay gaarista heer bilic iyo horumar ay adag tahay dhalinyarta hadiya gaar ahaan haweenka waxa waajib inagu ah oo ina saaran in aanu mar walba isxasuusino xorriyadda aynu qaadnay iyo mas'uuliyadda oo aana ilaawin mas'uuliyadda xigta ee naloo igmaday taariikhda aanu sidno iyo jiilka iman doona waxyaabaha wanaagsan ee la rabo inay naga dhaxlaan haddii aan isbarbar dhigno waqtigii hore ee halkan ku kulanteen iyo maanta waxaa muuqda horumar badan oo la arki karo oo jira maanta waxaa muuqda waxyaabo aan horay u jirin halkaasi waxaa ka muuqda dhalinyaro badan oo soo laabatay kuwaasi oo u shaqo tegay Pretoria, Johannesburg iyo Cape Town dhalinyarada uraagada ee ka soo shaqo taga caasimadda dalka kuwa ka yimid Jimma iyo Diridhaba qoysas ka kala yimid dhammaan qowmiyadaha ku kala nool deegaanada dalka dhammaantiin waa inaanu ku dadaalnaa xoojinta nabadda horumarka iyo tasiilaadka bulshada Itoobiya waa dal ay la soo gudboonaatay caqabadooyin badan hase yeeshee sidoo kale waa dal leh awood aan la soo koobi karin khayraad dihin dad awoodadeed dalag
dhul iyo fursado badan oo jira. Jiilka maanta taagan ma aha inuu eego oo keliya dhibaatooyinka, waa inuu arkaa fursadaha jira. Taasina ha ahaato mid laga dareemo waxqabadka muuqda ee ka socda meel kasta. Waxaan xaq u leenahay inaannu guul ka gaadhno haddii aynu ku dadaalno wadajirka, midnimada, shaqo iyo dareen qarannimo. Itoobiya waa mid weyn oo ku jirta kobac. Waa inaannu sii xoojinnaa jidka horumarka. Ka Itoobiyaan ahaan waxa ayna saaran waajibaad ah inaannu xoojinno midnimada qowmiyadaha iyo shacabka. Hoggaan hufan inaannu yeelanno, xoojinana isbeddelada hay'adaha, danaha qarankeennana aan xaqiijinno si aan u suurtagelinno barwaaqada iyo horumarka lagu keeni karo wadajirka. ሁላችን እኩል ሆነን በወንድማማች ዓይን ተያይተን በመደመር እሳቤ የበለጸገች ኢትዮጵያን ለልጆቻችን እንድናሻግር አደራ ልላችሁ እወዳለሁ።